السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهنتي نبأ دوضي الملك السوء عالم كجوتان كسور دواذا برنامج عادو حيث بدن muuqaalkan hortiina ka muuqda wuxuu ka mid yahay dhacdadii maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee aadan cadde international airport. Dhacdadaasi ayaa waxa ay ka yaabisay dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed, waxaana laga yaabay kadib markii la arkay dhalinyaro isugu jirta ciidan iyo shaqaalihii qaybta migration-ka ee garoonka ay feer iyo laad iyo dhagax tuur ay iskula dhaceen garoonka gudihiisa. Waxaaba ka sii daran markii ay gudaha iskala soo baxeen oo dagaalkii u soo baxay garoonka dhexdiisa, halkaasoo ajaanibtii diyaaradaha saareed qaarna ay raacayeen qaarna ay ka soo degayeen awyaab iyo amakaag oo ku dhacay. Arrintaani ayaa waxa ay tahay arrin anshax xumo ah haddii ay naqal laheeday in dhibaatadu ay ka bilaabatay dhinaca shaqaalaha migration-ka ama ciidamada nisa ee nabad sugidda Fahad Yaasiin Kaamar qaata. Intuba waxa weeyaan arrin aan la dhayalsan karin, indhahana aan loo dhammayn karin, isla markaana muujinaysa sawir xun oo caalamka uu naga arkayo. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in dhalinyarada qaybta migration-ka u soo shaqo tagta saaka ay ahaayeen kuwo abaabulan, isla markaana doonaya in ay qalalaaso iyo dhibaato ka dhameeyaan garoonka si ay u fuliyaan fariimo ay u soo dhiibeen qolyaha mucaaradka, taasoo ah in dadka caalamiga ah ee garoonka imaanaya iyo beesha caalamkaba la tuso in dhibaato weyn ay ka jirto magaalada muqdisho, isla markaana ay halis ugu jirto in dagaal sokeeyo oo ka bilowdo. Sawirkan ay muujiyeen shaqaalaha qaybta migration-ka ee garoonka diyaaradaha ayaa waxaa ahayd mid laga soo shaqeeyey, isla markaana ay ka soo shaqeeyeen mas-uuliyiinta mucaaradka ah ee markasta ku hadaaqa hadalka ah in dagaal sokeeye uu ka dhacayo muqdisho haddii muddo kororsiga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka naqan waayo. Waana arrin maalmihii ugu dambeysaba ay wadeen diyaar garowgeeda, maantana waxay u soo rareen dhibaatadii in ay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde international airport ay u soo rareen dhibaatadii ay ku hayeen xaafadda Shirkole iyo xaafadaha ku dhow ee uu ku dhuumaleysanayo taliyihii shaqada laga eliyay ee Saadiq Cumar Xasan Saadiq John. Dawadayaal, sidaad u aragtaan arrintan bal hoos nagula wadaaga oo commentiga nagula soo wadaaga bal sidaad u aragtaan iyo ceeb inta la eg oo waddankeena ku dareemayo dhibaatada noocaan haddii ay sii socoto. Sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka sii share garaysaan, like iyo commentigana aad lanka bakhiilina, page-kana follow aad dhahdaan, fadlan YouTube channel-kana subscribe noo saara. Waa mahadsantihiin. Wasaaxiibkeen Cabdullaahi Dasar.